كان waxaan ku arkaynaa ciidankii maaragtay soo hayay waa naftuuri ugu horeeyay laba maalmood kadib markaan boorsooyinkooni qaadan kari weyn wada boorsadaydi halka gabadhaas wax la yiraahdaa wada gabadhan kalena tii xirsi bay wada isaguna dee waad arkaysaan naftuuriyaashii waa kuwan kala odayga xirsihana waa ka dhulkan doolaa la yiraahdaa laba maalmood iyo laba habeen ayaanu maaragtay soo soconay kolka هذا كجرنا ودول آدي آد ماركتي ياب أوله ودورت هالكن حاجة ريبة اللي يده هذا حرسي بهالك تاجن أو ماركتين تحتيجون دري هذا ركتها يجي أو صعدة وكوا هالكاسي كسي بحيان كبردن أبح باللي يده هذا أبح باللي يده هذا وقبلها حاجة ري markii hore waxay noo sheegtay inay reer ciideed ay ahayd ubax maxaad maalin dhibkan kada iyo rafaadkan iyo socodkan aad ku mudatay ma nooga jawaabi kartaa haye kor qaad codka halkan kareeradooda yaan dhibka rafaadkaas aad ugu jirtaa okay axmaaradu wax dhibaato oo ay ku geysatay ma jirtaa mise waxaad adigu la kulantay هاي أذكر مقعة ولا هاي فوز ما ركتي ما حد يمكن يرفعت كان كذا ساعات انتظر وهذا كليل أهو كوبي طبعا كي يبركيا أطرفات كانوا وجرتها هذا كرجالين يدفعوا سمري وجرتها أوكي واحد بعد ما حي تكمل ذا بعد تداس كمل قميص هاي قميص يدفعوا نوها يحلق أوران هون هذا كوجرنا maxaa ka mid ah dhibaatada oo aad aragtay ma abaha budulay ma hooyada budulay ma hooyadu ku saday maxaad la kulantay wana ku saday wuna la yaabana hooyadana nagu dilay wiilashanadina wada laayay anagana wuna ku saday wuna dilay imise jir baa tahay foos aniga steed iyo 10 jir okay ubax adigu imise jir baa tahay 17 maxaad kula dardaarmi lahayd gabdhaha da'daada ee 17 jirka ah ee Yurub iyo Ameerika iyo Australia iyo jooga maxaad oran lahayd eed wada dhalateen maxaad kula dardaarmi lahayd eed wada dhalateen ee iyagu nasiib u yeeshay in ay Ameerika iyo Yurub iyo Australia iyo qaaradahaas ay joogaan oo biyaha qabow maanta cabahaya aduguna hadda oon aad u rafaadsan tahay annaguna carabkii iyo isku dhigay maxaad oran lahayd hadda maqlaayay in tuuladii danood sekada dhan ay wayaanuhu gubeen xalayna waxa la ii sheegayay nin reebaadii ay gurigiisoo dhan iyo waxa la wixii maaragtay ku jiray la gubay adigu ma la kulantay dhibaatooyinkaas waxaad ka maqashay waa ninka guriga laga guday Ismaan waad mahadsan tahay foos ma aragtaa hay haye waxa sidaya hay sabxa aban ay socod ku hay dadka hay soo socod soo socdo aad baan u daalanahay waan rafaadsanahay oon baan nahay laba maalmood yaan soo soconay habeen hay ka dhib badan baan nahay aduu had mushkiladaas iyo rafaadkaas waan ogaadeen iyo darteedan baan u galeynaa marka naftii hore de aduguna de naftaadi iyo qoriga waxaad u qaadayba waa midaas hawl kale toon u soconaa ma jirto shaqadan baa inoo kala duwan halkan waxaan ku aragnaa
geedii gashay ahayd waatan sug waa geedii kashiida ahayd waa khayr bay noo tahay waa taas khayr bay noo tahay waa wadani in la taabto moo gelin wataa hadda sii baxday xaggaasi aaday halkan waa naftood horayaashii oo halkan taagan waa maalinkii saddexaad ee aanu hayaanka ku jirnay dhul isuma dhowa ciriya dhul kale fog meesha aanu marayna dayac dhulku waabad yaabiba ahey waxaa la yidhaahdaa xidh xas hilyaa la dhahaa xas badbaado bartaasaanu dhex maraynaa hadda saacaddu waa 8:00 5tii baanu soo kacnay war xirsiyow maxaad odhan lahayd ma isjeexday adugu wallaahi anugu waa kaasoo beekiyo enganganaato haye haye laakiin waxaan ku faraxsanahay inaan ogaado in bartankeedii joogo haye oo hadda xiriirkiisa haye kuna aadana dhanka iyo bannaan haye dhulkii la baxay gartay meeshan geeldidiska la dhaxay geeldidiska gartay naag meel yiraahdo hadda yaa nagu dhow iyo mataqaanaa meel yiraahdo dunaasana iyo aduu meelahaasaan marayna oo maxaa dhacay macaws baabad qabtaa keligaa macawsta sarwaalkii baa gooyey ma ilaahan kugu dhaari والله أكبر صوب اللون بش اللبادي نصيب وناك وحو إلهي ما أنت نهار كاني أيضا كي حرينت أوغادينيا وهالكن كذا فلار كمدة halkan waxaa ka soo socda fallaadhii ciidanka xoreynta Ogaadeenaya ee aagan aan ugu nimid marka waa iyagii oo hadda hawlgal u socda halkan ayaad maaragtay ka arki kartaan wada daba socdaan hore walba waa kan waa gabadh weeyaan